xildhibaan cali maxamed aadan cali barre oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliland ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu si adag uga jawaabay eedeymo uu dusha ka saaray xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani oo uu soo jeediyay xisbiga talada haya ee kulmiye Abdullahi warcade waxaan leeyahay adeer midin waxaad ku weeyaan iswaal kuma muhiibtaan baa ninkii gabayiri xog haye oo saaxiib baan nahay maxamed Abdullahi warcade muddaan saaxiib ahayn been lagu macaasho haddaad xisbiga wadani u hadlayso oo gabadha cod ka doonayso been lagu macaasho waa lagu khasaarayo waliba dambi baa laga qaadaa if iyo aakhiraba iska hubi warka aad sheegayso oo aad isla soo taagayso warbaahinta iska hubi waa kula talinaya waxa la yiri wuxuu u digay kulmiye adigu horta naftaada u dig ilaa nin weyn oo been sheegay waa geed qolofta ka dhacday nin weyn oo been sheegay waa nin ceeboobay iska hubi warka aad sheegayso qofku in kastana ummadda in la eedeeyaa inaan sharciga ku banaanayn siyaasaddu waxa weeye inaad adigu haddaad cod doonayso ummadda kasbato ma inaad qof wax ka sheegto taana adan kaaga digaya adigu waxa tiri kulmiyaan u digayaa anna wadani waxaan uga digayaa siyaasadda codka lagu helaa maaha inaad ummad eedayso cambaarayso waxaan jirin dusha ka saartay waxa weeye ummadda kasbada haddaad cod doonaysaan haddaad yarahay quusateena dee iska tanaasila haddaad xoogaa shakideen baan idin oran lahaa saas aan leeyahay waxaan kelmad ka oranayaa waxaad ka hadashay maxamed Cabdullaahiyow maxamed kaahin baa yiri 80 baan la kaga helay oo aan aqbalay oo maxaa ka galay adiga wadani baa soo qaaday boqoladii 80 ka laga aqbalay ma wadani bay ahayd udub bay ahayd iyo daahir yaala kaahin udubna waa mahadsan tahay muddo qaranka soo wado xisbi jirabo ahaa laakiin wayna ka baabay adiga maxaa ka galay creditiga kulmiye leeyahay Ahmed Maxamed Musiilaayo ku tanaasilay uu leeyahay oo adigu wixii wanaaga oo cid kale hesho maxaa sidbaad tahay sidoo kale xildhibaan cali barre ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalla ka soo yeeray xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo ku eedeeyay mudanayaasha golahaasi ugu jira xisbiga talada haya ee Soomaaliland inay hor istaag mooshin hor yaala golaha wakiilada Soomaaliland waxa mooshin keenay xildhibaano tiradooda hadda 20 bay ahaayeen mise 20 bay ahaayeen mooshinka ay keeneen waxay ku soo qoreen in goboladii cusbaa aan ansaxsanayn goluhu yiraahdo oo ansixiyo in xukuumaddu keento wixii u qalmay oo shuruudi ka soo baxay gobolnimada iyo degmanimada si labada gol u ansixiyaan sida golaha wakiilada u ansixiyaan bay yiraahdeen mooshinka waxa loo gudbiyay gudoomiyaha golaha gudoomiyaha xisbiga wadani ee Cabdiraxmaan Ciro gudoomiyuhu wuxuu akhriyay xildhibaanadii soo qoray mooshinka 11 xildhibaan baa tiri annaga soo qoray oo aqbashay inta ka badanina waxna waa maqnaayeen waxna waxay yiraahdeen anagu mana saxiixin mana ogeyn xildhibaanada 11 ka aqbalay oo yiri annaga soo qoray wadani iyo kulmiye way isugu jireen xildhibaanada qaarna maqnaadeen qaarna yiraahdeen anagu kuma jirno oo nalooma sheegin mana saxiixina wadani bay u badnaayeen arrinka markii la akhriyay moosinku wuxuu ku ansaxaa 11 xildhibaan 11 xildhibaan waa la helay dabadeedna gudoomiyuhu wuxuu u gudbiyay la taliyaha sharciga sharciga inuu waafaqsan yahay kale ha soo akhriyo sida xeeroosaad ku dhigayo sidii baa lagu sugayaa cod looma qaadin cod looma qaadin mana diidin waxna ma yeelinba mooshinkii la taliyaha sharciga haya cidda aqbashayna waa isku jireen cidda diiday ama maqnaatayna waa isku jireen ragga maqnaaday oo saxiixay oo la waayay xasan cawaal caynaankaas ka mid ahaa oo meesha wax ka akhriyay anigu ma qan xisbigu yahay tukaale ninkii dhiibay buu ahaa mooshinka horta moosinku saas u ahaa inay waxay labaduba sheegeen been tahay waa cadaynaysaa mooshinka looma codayn bal gudoomiyaha la soo waraysto gudoomiyaha wadani
shirkan jaraa'id ee uu ku qabtay magaalada Hargeysa xildhibaan Cali Maxamed Aadan Cali Barre ayaa waxa ka dambeeyay kadib markii qaar ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ay ku eedeeyeen mudanayaasha xisbiga talada haya ee Soomaaliland ugu jira golahaasi inay hor istaageen mooshin ku saabsan in la ansixiyo gobolada iyo degmooyinka oo hore u magacaabay madaxweynihii hore ee Soomaaliland balse xildhibaan Cali Barre ayaa ku tilmaamay mid aan sal yar raad toona lahayn ومحمد أحمد موسى محمد شيكرية TV